waxaa tirtirtay wax alla iyo wixii ay duubeen kaamirooyinkii hotelka xitaa lama adan been maxaa dhahay waxaa kaaga sii daran dukumiintiyadii boorsooyinkii ay wateen dadkii dhintay kuwii dhaawacmay iyo kuwii agahooda ku baxsaday ee deganaa hotelka laantii sirdoonka dalka horey u qaadatay maxaa kaamirooyinka loo tirtiray far baa meesha ku godan mahad salaado tani adigay jawaab ka rabta madaxweynihii Soomaaliya amnigiisa loo baqaya 7 goobood oo ka mid ah xarunta gudaha madaxtooyada fila Soomaaliya waliba qaybta uu madaxweynuhu degan yahay kuna shaqeeyo kaamirooyinka wax basaasa ayaa lagu xiray waliba sirdoonka dalka la socoraya dhaqdhaqaaqa guriga uu Xasan Sheekh degan yahay iyo goobta uu ku shaqeeyo maxay tahay cabsida ka jirta gudaha madaxtooyada warma dawlad nafteedii ilaa shalla oo sidan u qalqalsan miyay dadka Muqdisho ka sugayaan amni waxba sarag leh waxaan ku soo gudbin doonaa arrimo aad u xasaasiya muuqaalka sheergareeya oo la wadaaga asxaabteena meel kastoo aad joogtaanna waqtigu haydin wacnaado barnaamijyadeedu waxaad ka daawan kartaa pageka Facebook Cabdullaahi Balwaan ma daawan karo qofka aan pagekaas follow garayn oo aan ka mid noqon dadka ku xiran pageka si aad barnaamijyadeedu la socoto kusoo biir pageka Facebook Cabdullaahi Balwaan mahad salaado shabaabkii caawi halkee ka baxeen mahad salaado dadkii 30 saacadood lala dagaalamayay meydadkoodii meel ku sheeg aaway dhaawacoodii aaway maxaabiistii aad qabatay dadku ma jin bay ahayn mahad salaado su-aashaasi jawaabay u baahan tahay aan dadka Soomaaliyeed runta u sheego waxaa timid 5 galabnimo maalintii ugu dambeysay ee habeennimo ay baneynayeen argagixisada al-shabaab hotelka Xayaat waxaa tiri ciidamada ku heeraraysan gadaalha uga baxaan waxaan duminayaa hotelka waxaa dib u soo baxay ciidamadii dowladda federaalka Soomaaliya kuwii isweerka ka hayay hotelka markaas miyay baxsadeen ileen waxaa tiri sartan duminayaa dib uga baxa kuwa ku jiray ee argagixisada ahaa yaad uga tagtay mahado farba meeshaas ku badan anigu waxa saaqay ku dhimaayo laakiin su'aalaha jawaabta u baahnaa waxay tahay 5 iyo barkii galabnimo markaa timid xabadiina way joojiyeen waana la waayay dadkii meesha ka dagaalamayay maxaa isku soo been markaa tiri ciidamada dib loo durjiyo qorshihii aad wadatayna aad ku sheegtay inay tahay mid sarta lagu duminayo mahad salaado tani jawaabay u baahan tahay aaway shabaabkii dagaalamayay halkee la geeyey ma jin bay ahaayeen ma dabayshay raaceen may mahadu markaa timid shabaabkii waa la waayay see wax jira ma fursaday kaaga faa'iidaysteen markaad ciidamada dib u durjisay mase qorshaha tacticada aad dib u durjinaysay ee ciidankii isweerka ka hayay hotelka ayuu ahaa qorshe loo baahnaa in markii horeba dowladdu ay aragto falanqayso isla arko ujeedkeeda la ogaa waxbaa sarag leh waxbaa sarag ميد لبحي داوعنا لبحي محبوسنا لبحي دولدو wax ay gacan ku hayso dadkii 30 saacadood la dagaalamay ma jiraan waliba waa dadkii isku gurmanay shabaabku 2 jeer loo gurmaday raggii markii hore galay gudaha hotelka yaa wadada u furay ma xasabaad ciyaarta ka tabaasha yaa gurmad kala soo daayay waayahay maanta dawladdu waxay la aamusan tahay madaxweynihii uu hadlayay oo arrin meesha taalo afkii baa juqda gabay madaxweynihii jamhuuriyadda ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa isna waxa uu la hadlay warbaahinta furko turtay tilaabo qaadayna la xisaabtana imaanaya wasaaradaydu macnaha xukuumadayda dan qaran tilaabo qaadaysa hadalka ra'iisul wasaare qormo hay yark وساكي يا دغدغه مeel ku arkay horta isweydiyo Xamza ma amra ma hasabat meesh wax yaala oo loo baahan yahay dadkii loo sheego ilma reeyal dadkii iga sugayay jawaabta kama dambeynta dadkii 30 saacadood dagaalamay nololay ku baxsadeen dawladdu dhaawacna ma hayso ilaahay kuma sabadiiday dad nool ma hayso wax dhintana ma hayso howlgalkii
hantidii ku burburtay iyo weliba dadkii ku dhintay waxay noqotay ziira ka bilow maantayse sheekadu ka darantay maamulka hoteelka Xayaat ayaa waxa ay ii xaqiijiyeen in laanta sirdoonka dalka ay tirtirtay kaamirooyinkii ku xirnaa hoteelka sabab maxaa loo tirtiray maxay tahay sababta loo masaxay kaamirooyinkii bad qabay ee ku xirnaa hoteelka inta ka badbaaday gantaaladii lagu garaacay xoogaa waxbay duubeen bilowgii hore markay soo galayeen wax ayaa laga hayay kaamirooyinka laga heli lahaa kaamirooyinkii hay-adda sirdoonka way la baxday macnaha way tirtirtay waxaana loo yimid kaamirooyinkii wada faaruqa intaa waxaa kaaga sii daran mahad salaadoo dukumiintiyada yaallay hoteelka Xayaat aaween mahadoo boorsooyinka aaween wixii yaallay xafiiskii bad qabay ee ka badbaaday burburkii hoteelka cagtaa la mariyay gaariyaha la saarta maamulkii sirdoonka intay ka baxeen boolisku waxay leedahay annaga ma arag waxaas alfa gruubaa loo tegay waxay yidhahdeen ma hayno mana arag wixii laga soo qaaday hotel Xayaat laantii sirdoonkii gurigii habar Khadiijo markii la tegay cid bini aadana oo maamulkii hoteelka la hadashay dhaway dukumiintiyo baasaboorro ah kuwii dhintay iyo kuwii dhaawacmay iyo kuwii cararay ay lahaayeen dadkii hoteelka deganaa gacan lagu mahay maanta 60 jawaan in ka badan oo waxaa laga soo saaray hoteelka meydad u badan dad go-ay hilbahoodii weliba qaybta dambe ee barnaamijka ayaa lagu tusi doonaa hadduu internetka iyo ogolaado internetku ma ogola dhaawac iyo wax dhiigaya in ummadda la tuso iyadoo la ixtiraamayo dadka daawanaya barnaamijka hadday u suurto gasho waan kuu soo bandhigi doonaa dadkaasi go-ay ayaan barnaamijka qaybtiisa dambe kugu tusi doonaa hadday ii suurto gasho hadduu alla imo balse intaanan u gudagelin xaaladda hoteelka iyo wixii ka harsan iyo wixii kusoo kordhaba hotelkii Xayaat waxaan rabaa inaan ku laabto madaxtooyadii Villa Soomaaliya madaxweynihii aan ka sugaynay inuu noo tacsiiyey xasan sheekho maxaa ku dhacay ninkii xorma ah xasan sheekh naxariista badnaa dadka la ooyi jiray waa lagu afka wuxuu ka dhihi lahaa waxaa leeyahay madaxweyne waa lagu yidhi aamus ha u tacsiyin ka soo xasan sheekh xor maaha maskixiyan xor maaha shaqadiisa xor maaha ilaa iyo hadda wax tacsiya ama dhawaaq ama muuqaal ama nolosha xasan sheekh oo sheegi karna xataa ma jirto waxaa noogu dambeysay isagoo WMV la kulmaya xataa ma ogin xaalkiisa anigu waan idiin sheegay xasan sheekh nin xor maaha laakiin dadka maanta uu isku heeraarayay meel cidla ayay dhigi doonaan anigu naftiisaan u baqaya anigu caafimaadkiisaan u baqaya walaalayaalo odaygii xasan sheekh ahaa laga wardoon simba meeshaasaan uga tegayaa qaybta 7 goobood oo u badan meesha uu degan yahay madaxweynaha iyo meesha uu ka shaqeeyo ayaa maanta kaamirooyin lagu leeyahay inkastoo dadkii madaxtooyada soo galay loo diiday qalab kasta oo wax duuba mobile hadday tahay hadday kaamera tahay waxay ii xaqiijiyeen gawaaridii iyo dadkii xirayay kaamirooyinka inay dhawada ku arkayeen ma ogtiin dadka madaxtooyada jooga inay aniga ii warramaan dad mobiladii ka reebteen anigu waan ogaan karaa cabsida loogu xiray guriga madaxweynaha iyo xafiisku ku shaqeeya kaamirooyinkaas maxay tahay madaxweynihii baa naftiisii loo baqaya madaxtooyadii baa qalqal amni darre ka jira xitaa ra-iisul wasaaraha istaafkiisa waa la diiday inay gudaha galaan xitaa guddoomiyihii golaha shacabka waa loo diiday istaafkiisa inay gudaha galaan naftii madaxweynihii baa loo baqaya madaxweyne ciidankii waa soo socda madaxweyne shabaabkii baa soo socda madaxweyne gudihiihood cabsidan maxay tahay anigu laba wado ayaa mid u haya madaxweyne xasan sheekh madaxweyne dowladdaada waa la sugayay waana la jeclaa waana la jecelyahay kunniyo jabi maayo laakiin intaad xayndaabkaas ku jirto waxaan ummadda hortooda maanta uga sheegayaa madaxweynaha mudane xasan sheekh maxamuud guuldarra ku dambayn doonta fashil amni iyo mid siyaasadeeda dhaxda lagaa dhigi doona hadhow eed meel kale ma aadi doonto madaxweyne calaa kulli xaal qalqal amni ayaa ka jira madaxtooyadii Villa Soomaaliya xaaladii amni madaxweynaha loo baqrin qabaa ra-iisul wasaarihii baa xalay hadlay waa lagu qosay markuu hadalka dhameeyay madaxtooyadii u tegay waa lagu qosay hadlay war maxaad ku hadashay yaa ku yiri ku hadal ma baaha ma dad hadalka xor u ah ma wixii uu xalay ra-iisul wasaarihii sheegay wax ka jira haba yaraatee baa leedahay wasaarad aad la kulmi kartana ma jirto wasaarad aad amri kartana ma jirto annagaa naga sugaysa amar
oo yaa dalka u taliya marka waxaa iga su-aala haddiiba ra-iisul wasaarihii hadalkii uu xala sheegay saaka uu fuli waayey muxuu xala sheegay ra-iisul wasaaraha tilaabaan qaadaya waa lala xisaabtamaya darajaduu ku weynaya war yaa saaka arkay wax dhaqdhaqaaq war yaa darajada weyn xitaa yaa arkay shir socda xataa yaa ii sheega waxaa la yidhi ra-iisul wasaare cagadhigaa la weyli speedka noocan oo kale speed aan kugu dooranay maaha stage waaba dad la haysto waaba dad gacanta lagu haysto waa dad albaabadii ka xirtay dadkii xitaa u gurma lahaa maskaxdii wax u sheegi lahayd albaabkay ka xirteen amnigii caasimadda iska daaya amnigii madaxtooyada qalqal ku jira madaxweynihii baa baqaya ciidamadii amisom saaka eeyihii baa baarayay xafiiskiisa oo wallaahi oo bilaahi xafiiska xamza iyo xafiiska xasan sheekh maxamuud waxaa baarayay eeyihii ay ciidanka amisom wateen war maxay tahay sababta keentay in gudihii madaxweynihii meeshuu ku shaqaynaya in laga shakay waxba asarag leh madaxweyne dadku waa ku jeceliya bilfadlan mugdiga aad ku jirto ka soo baxa ummadaada hor imow dadkii ku yidhi ha tacsiyeyn god bay kuu qodayaan laakiin wax aad ka faa'iido aday kuu taala aan usoo laabtoobtay xayaat 60 jawaan in ka badan oo meydad ah oo weliba hilib go-ay u badan ayaa laga soo saaray hotelkii xayaat weliba argagixisadu markay gelayeen waxyaabaha adag oo hadda ay gurmadku xitaa uu u shaqayn lahay waxaa kamid a jaranjarada dabaqa laga koro oo dhan miiray ku xiran jaranjar fiyow malaha meel laga koro mara dabaqa jaranjar kastaba miiray ku xiran waxay dantu kalifeen marka gurmadka qaar maba geli kartid oo inaad xirig ku gashaa xirig hotelkii masiibadaasaa ka taagan dad baa marka waxay ku dhinteen daaqada aynan jaranjar lagu tegi karin maantoo dhan aa la soo guraya dadka 60 in ka badan gadaalaa loo feeriyo masiibo ba-an ayaa dhacday laakiin dowladdii waxqabad aan ka sugaynay naftoodii maareynayaan saaka isma lahayn kaamirooyin ay xiran doonaan ee waxaan islahaa howlgal bay samayn doonaan suug bal shalay waaba fududaateen maanta sugaan islaha maantana arayad mahay mahadsanaago walaalo kaamirooyinkii hotelka ku xirnaa walaalo kaydkii ku jiray ee aad markaad gudaha gashay meesha ka tirtirtay maxaa ku duubnaa xeebtaa noo sheeg afku noo sheegta walaalo aaway dadkii nala dagaalamayay soddonka saacadood meel ku sheeg meeshaan waxbaa sarag leh anigu se tooskan kusii iftimi doonaa dadkii hotelkaasi iska lahaa walaalaha codadka hawiye ee muursade xataa lala mahday kaaga sii daranay arrinta ugu culus dadkaasi dowladdu qalad weyn ayay ka gashay kow amnigoodii yaa la sugi waayay 2 3 saacadooda laga maqnaa xilligii gurmadka ay u bahnaayeen weliba dad soomaaliyeed kula dhintay mursado keligii kuma dhimane hotelkii dadkii milkilaha ahaa 3 aniga runtaada igu imaanaysaa 3 markay dhibaata dhacday qof qaabilaya waxgaradkii halkaa deganaa iyo eheladii halkaa ku dhintay ilaa hadda dowladda xataa u tacsiinaysa lama war dulmiga koowaad iyo kii labaad iyo kii saddexaad mid la dhegaysan kara maaha xukuumadda dan qaranna xalay hal wiiftay soo tuureen dhag ra-iisul wasaarihii dhag lama hayo saak beesha mursade mayduugiday hadda ku mashquulsan tahay iyo dadkii halkaa ku dhintay maydkaas markay duugtaan kadib ma waxaa noo dan ah in aan shibka dhahno annagoo ku dhegaysanay cadowgii soomaaliyeed ee shabaab la qalqalay la burburiyey sartoodii laga aamusay wax badan baa halkaa ka dhalan doona haddaan laga foojignaan waxay kusoo kordha isha ku hay xaaladaha soo kordha facebooka pageka cabdullaahi burwan halkan